راح أسعى لما أجيبه مع المحكمة وأخذ حقي بالقانون. ninkan waxaa markaa uu ka mid ahaa maxaabiista meydkooda laga helay xabsiganiti Sinai. waxaana ninkaniti hore mar dhacdayba in xabsiganiti inti lagu xiray halkaniti lagu ciqaabay xabsiga uu ka baxay isagoo markaa wadamada city Yurub galayna dib halkaniti inta Suuriya ugu soo laabtay mar kale shirqool halkaniti dib inta loogu soo xiray meydkiisa ugu dambeyn halkaniti laga helay. ninkan intii markaa city uu noolaa hadalladii laga diiwaan geliyey ee laga xasuusto waxaa markaa ka mid ah inuu dhahay alla ayaa la xisaabtami doono sharciga ayaana qaban doono xukunka rajiimka ee Bishaar al-Assad uu hogaaminayay ma nasan doono ilaa aan maxkamad la hortago si aan cadaalad u helo. waxaan hadalkiisa markaa uu yiri ninkaniti maxbuuska isagoo sii hadlaya warbixinna sii sheegayay waxyaabaha xabsiga Sinai uu kula kulmay markii hore ee 2 sano la xiray halkaasi xabsiga uu ku noolaa in uu sheegay tacadiyada iyo waxyaabaha halkaasi ka dhacay in ay aad u fogaayeen isagana xitaa jirdilka loo geystay wax markaasi caqliga aysan aqbali karin aysan ahayd oo maskaxdiisa ka weyn halkaasi aad loogu ciqaabay. waxyaabaha xusuusta leh ee ninkaniti uu ka sheegay xabsigaasi Sinai intii uu noolaa waxaa uu sheegay in isaga iyo maxaabiista lamid ah lagu qasbi jiray dadka xabsiga lagu dhex dilo in dhiigooda iyo dheecaankii dhulka ku baxay ay nadiifiyaan. waxaana cabsida city iyo waxyaabaha city uu ka sheekeeyey xabsiganiti Sinai ee dibadda soo dhigtay waxyaabahii rajiimka ee xukunka Bishaar al-Assad uu ku samayn jiray xabsiganiti gurigan sidoo kale loogu magac daray gurigii dadqalka ee halkaniti dadka dhibaatada badan lagu marsiin jiray. ninkan oo lagu magacaabo Mazen waxa markaa ninkaniti uu dhashay sanadii 1977 waxaanu ku dhashay magaalo lagu magacaabo Deir Azur oo Suuriya kamid ah magaalooyinkeeda waaweyn. 2011 waxaa markaasi jiray kacdoono wadamadaniti carabta aad uga hana qaaday oo xukunka looga tuurayay xukunno halkaniti waqti dheer iska haystay ee dadkuna ay ku kaceen. waxaana ninkaniti uu ka mid ahaa dadkii ugu cadcadaay ee Suuriya xilligaasiti Bishaar al-Assad kasoo horjeeday ee diidayay in halkaniti waqtiga dheer uu iska fadhiyo waxyaabaha qaab darrada ee dadka uu kula kacayo in halkaniti ninkan la dhaafiyo markaasiti doonayay. waxaa dhacday inuu ka mid noqday dadka xilligaasiti kacdoonada markii dhaceen dadka ugaarsiga galay oo dowladdii Bishaar al-Assad uu hogaaminaya xilligaas waxaa dhacday in ninkaniti ay qabtaan ay xiraan xabsigaasiti Sinai ay ku xiraan 2 sano halkaasiti tacadiyo kala duwan uu kula kulmay. waxaa ninkaniti nasiib u yeeshay in xabsiga markaasiti laga sii daayo markii wadamada city Yurub uu tagay uu ka cararay Suuriya waxa uu sheegay waxyaabaha markaasiti xabsigaasiti ka dhex jiray in warbixinna markaasiti uu ka tilmaamay. waxyaabaha uu sheegay waxaa kamid ah markaa uu banaanka soo dhigay xilligaasiti in xabsigaasiti Sinai waxyaabaha ka jira ay aad uga fog yihiin waxyaabaha bini'aadanka uu filan karo tacadiyada halkaasiti dadku ay ku maraanna in ay tahay tacadiyo waxyaabaha markaasiti bini'aadanka aysan xamili karin suuraysan karin xataa halkaasiti dad ciqaab intaasiti marka ay ku mari karaan. waxa uu sheegay in halkaasiti marka lagu xiray jirdilo fara badan iyo ciqaabo kala duwan la marsiiyey. waxyaabaha xanuunka uu tilmaamay waxaa markaa ka mid ahayd in uu dhahayba xabsiga intii markaasiti uu ku xirnaa waxyaabaha uusan hilmaami karin ay ka mid ahayd in dad xabsiga lagu dhex dilay halkaasiti dhiigga iyo dheecaankii dhulka ku baxay la dhihi jiray nadiifi isagii markaasiti maxaabiista lamid ah. muddo 2 sano oo ciqaabo kala duwan halkaasiti uu ku maray xabsigaasiti Sinai waxaa markaa nasiib u helay ninkaniti in la sii daayo. waxaana xilligaasiti uu ka cararay dalkaasiti Suuriya isagoo markaa muddo 7 sano ah ku noolaa wadamada city Yurub halkaasiti uu magangelyo ka raadsaday. waxaa dhacday in ninkaniti lagu soo dabay xukunkii Bishaar al-Assad markaa uu hogaaminaya ee rajiimka in ay ninkaniti ku dhaheen maadaama kacdoonadii iyo waxyaabihii Bishaar al-Assad uu kala soo horjeeday xagga Yurub markii uu tegay uu dib usii bilaabay uusan ka quusanin maadaama uu doonayo isbedelka Suuriya in indhihiisa markaa uu ku arko. waxaa dhacday in ninkaniti in lagu soo dabay in la dhahay cafisaa lagu fidiyey Suuriya waa imaan kartaa. ninkan maadaama dad iyo dal jacayl ay haysay waxaa markaa uu soo aaday uu soo qorshaystaba safarkiisa in uu dib ugu soo laabto wadankii marka hore uu ka cararay ee halkaniti ciqaabta kala duwan lagu marsiiyey ee naftiisaba uu kala cararay xukunkaasiti rajiimka ee Bishaar al-Assad hogaaminaya ee xilligaasiti ku sugnaa wadankasiti Suuriya. waxaa dhacday 2020 in ninkaniti safar uu soo qorshaystay in uu soo galo oo halkaniti Suuriya ugu soo aaday laakiin digniinaha xilligaasiti la siiyey waxaa markaa ay ahayd ninkaniti in la dhahay ninkaas ha u tegin dowladda city meeshaas ka talinaysana haddii wadanka Suuriya aad tagto xilliganiti caqabada kala kulmi karta oo dadkii markaasiti ugu dhawaayo kale ay dhaheen ha tegin waqtiganiti kuma haboono. ninkan waa uu ka dhaga adeegay waxaan uu istusayba cafiskaasiti loo fidiyey in ay tahay
wax weyn oo markaa uu dib wadankiisa Suuriya ugu laaban karo. 2020kii safarka markuu soo galay wadanka City Suuriyan uu imaaday waxaa dhacday in ninkaniti garoonka markuu kasoo degtay wixii uu filayay wax ka duwan halkaniti inuu kula kulmay. Alshaan waxa uu filayay nin xogaha iska caadi oo kale in loola dhaqmi doono oo maadaama cafis loo fidiyey la dhihi doono soo dhawow wadankaaga dib ugu soo laabo waa geli kartaa xoraa tahay oo dibajoogii aa ahayd iyo markaa xukunkii aan kula doonaynay iyo sidii aan rabnay waan kaa cafinay. Ninkan garoonka markuu kasoo degtay waxaa dhacday in garoonka laga kaxaysto dib dambana markaasiti wax xoga aanan looga helin muddo 4 sano ah oo la weysnaayay ninkaniti meel jaan iyo cirib xilli markaasiti uu dhigay. Waxaa dhacday xukunka rejiimka ee Bashar al-Assad marka bishaniti xilka laga tuuray December maalmo ka hor in ninkaniti meydkiisii loogu dhex tegay xabsiga Sidnaayo markii hore markaasiti uu ka baxay xagga Yurub iyo markuu tagayna uu ka sheekayay tacadiyada kala duwan iyo waxyaabaha maangalka aan ahayn ee dadku halkaniti ay ku maraan. Ninkan qadar waxaa markaasiti asiibay in halkaniti isaga markaasiti uu kusoo laabtay mar kale wadankaasiti Suuriya isagoo filayay in uu wadankiisa si xornimo ugu noolaan doono in halkaniti dib inta xabsigaasiti loogu xiray ciqaabe iyo markaas sidii jirdillo iyo waxyaabo kala duwan oo ciqaabo loogu sameynayay. Waxaa dhacday in ninkaniti nafsadiisa uu ku waayo oo waxa uu ka mid noqdaba maxaabiista meydkooda laga soo saaray xabsiganiti Sidnaaye. Xabsigan Sidnaaye muddadii markaasiti uu jiray xukunkaniti rejiimka Bashar al-Assad ba dadka aad uga soo horjeeda ay ku ciqaabayeen waxaa markaa ay ahaydba oo aad xabsiganiti u soo shacbaxay wixii ka dambeeyey 2011kii oo dadku halkaniti markii hore maadaama aanan loo qorsheenin in dad badan halkaniti lagu xiro. Waxaa dhacday xukunka rejiimka Bashar al-Assad uu hogaaminayay in ay dadka kacdoonada kala soo horjeeda ay halkaniti ku guraayeen oo ciqaabo kala duwan markaasiti ku marsiin jireen iyo dadka qaar xitaa naqaska uu ku dhagaayo kuwana si loo jirdilayaba ay dhacayso xogaha in ay naftooda ku waayeen oo kale kuwa kalena ay dhacday inay ku naafoobaan qaar xiska ay ku beelaan. Halkan waxyaabaha markaasiti ka dhacaya waxa ay ahaayeen waxyaabo bini'aadam wax lagu samayn kara ka fog laakiin rejiimkii Bashar al-Assad halkaniti laga buriyey waxa uu uga gol lahaa haddii qof halkaniti lagu xiro dibadda uu nasiibba u yeesho in halkaniti uu ka baxo in halkaniti marka uu ka baxo mar dambo dowladdii rejiimka Bashar al-Assad uu hogaaminaya in uusan wax ka sheegin sababta qofka markaasiti inuu xasuusanayo in haddii uu hadlo ama wax uu sheego isagoo Suuriya xilligaas markaa meel uu kasoo gaari karo rejiimka Bashar al-Assad hogaaminaya xilligaas dowladdii la buriyey in ay dhici karto qofkii inuu ka baqo in haddii mar kale lagu qabto xabsigaasitini dib lagugu xiro ay dhici karto in ciqaabtii iyo wixii markaasiti dib ugu laabo. Dadkana xusuusahoodii waxa markaasiti jira dad xusuustoodii ku waayay halkaniti iyagoo caafimaad qaba intay soo galeen xabsiganiti Sidnaayo waqtiyo dheerna halkaniti isaga xiraanayo qofka halkaniti marka lagu soo xiraba wixii markaasiti lagu soo eedeeyaa wax maxkamada ma wajaho xukun marka la ogyaho cayimanna qofka kuma xukunaado laakiin halkaniti waxa uu ku maraa ciqaab intii doono markaasiti iska xirnaada markii la doonaa markaa la iska fasaxaa la dhahaa bax oo ma jirto halkaniti wax sharci oo markaa ka shaqeynaya xukunkii rejiimka Bashar al-Assad halkaasiti intii markaa uu ka tilinaya wadanka City Suuriya waxaana ninkaniti markaa uu noqonaya cadeymaha iyo waxyaabaha cuqdada iyo xanuunka markaa uu waxyaabaha xabsiganiti ka dhacay ku gadaamnay dibadda u soo baxay